مسؤولينta hay'adda Khadija Al-Khayriya ayaa maanta deeq lacag u qaybiyay ardayda dugsiga agoomaha ee Sheekh Siidaan ee magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer deeqdan lacag oo ay ugu tala galeen in ay agoontaasi kaga qayb qaataan farxadda ciida Carafay ugu soo aadan waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer kuwa hay'adda Khadija waalidiin iyo marsharafadan waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadashay Rooda Cali Fidin oo kamid ah saraakiisha hay'addaasi iyo waliba Cabdicasiis oo kamid ah shaqaalaha hay'addaasi anagoo ah mu'assasad Khadija Al-Khayriya maanta halkan waxaan u nimi inaan caruurtii agoonta ahayd ee iskuulkan madrasad Sheekh Said qornayd inaanu lacagtii u qaybino anagoo aad iyo aad u faraxsan waalidkina faraxsan yihiin ubadkina faraxsan yihiin agoonta 2 sanadood baa iskuulkooda la soo waday dad khayriya iyo ay soo wadeen anagu aan soo wadno lacagta laga soo bixinay iskuulka waxa dhiga 12 macallin waxa dhigta arday xoog u fara badan intaba lacagta waxaan ka bixinaynay imaka dii lacagtii u soo furmatay bishii kasta ilmihii kasta lacagtiisa isaga iska bixinaya waxa u soo dhacay 800 ilmihii kasta $882 marka waxa loogu tala galay lacagtaas ma aha inay hooyada ku bacmashtirayso ma aha hooyada ilmaha lacagta ka lumiso waxa loogu tala galay lacagta inuu ilmuhu wax barto anagoo mu'assasad Khadija Al-Khayriya ah waxaan idin sheegaynaa caruurta inaan imaka siinayno jeegaga waxay la tagayaan bangi salaama lacagta siinaya marka waxaan kala idin sheegayaa in imaka qoristii caruurta Burco furmatay qofkii agoon haysta waxa Burco wax loogu qaybinayaa arday dhan 450 agoon waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada Xasan Jaamac iyaguna u mahad celiyay mas'uuliyiinta hay'adda Khadija Al-Khayriya shuyuukhdii imaaraatiga ahayd ee bixisay lacagta iyo Abu Cabdallah iyo Rooda Cali Fidin intaasoo boqol oo agoomood oo iidaas ku jiray ay ka farxiyeen waxaan leeyahay Allah idinka farxiyo agoomahan u gargaartay oo ay ugu horeyso Rooda Cali Fidin iyo Maxamed Jaamac Maxamed dhamaantood waxaan mahad ballaaran baan u celinaynaa Ibrahim Faarax Cable TV Burco